barnaamij looga soo horjeedo sare u kaca qiimaha doolarka iyo waliba maciishada oo halkeedii taagan ayaa waxa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Maxamed Muuse Tarsan ayaa warbixinta warkaasi nooga diyaariyay. kadib sare u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha lagu sarrifo lacagta doolarka ayaa isbedel ballaaran laga dareemaya suuqyada khudaarta ee magaalada Boosaaso, iyadoona ganacsatada yaryar ee iibiya khudaarta ee magaalada Boosaaso ay maanta dhigayeen dibadbaxyo ballaaran oo maamulka Puntland looga codsanayay inay qayb ka qaataan sidii hoos loogu dhigi lahaa kor u kaca ku yimid sarrifka lacagta doolarka, taasi oo dhammaan ganacsatadu ay si isku mid ah u sheegeen inay salka ku hayso lacagta shilin Soomaaliga oo ay dhowaan Puntland dib u daabacday. xilligii aan booqanay suuqa khudaarta ee magaalada Boosaaso ayaan la kulannay ganacsato fara badan oo albaabada u laabay goobihii ay khudaarta ku iibin jireen, iyagoona waday dibadbaxyo ballaaran oo ka dhana sare u kaca ku yimid qiimaha lagu sarrifo doolarka iyo maciishada oo iyaduna qaaliyooday. qaar ka mid ah ganacsatada mudaharaadyada dhigayay ayaa wariyaasha kula hadlay suuqa khudaarta ee magaalada Boosaaso, iyagoona maamulka Puntland si xushmad leh uga codsaday inay faragelin ku sameeyaan kor u kaca sarrifka lacagta doolarka iyo maciishada, iyagoona sheegay in barnaamijyadan ay dhigayaan ay yihiin kuwa nabadeed oo ay ku doonayaan in halkiisi la keeno sarrifka lacagta doolarka iyo maciishada oo qaaliyooday. sida doolarka waxa weeye maanta doolarku wuxuu marayaa 2 milyan iyo hadii laga 2 milyan iyo 600 wixii wax lagu iibsanayay iyo wixii hadii la kuna wax lagu gadayay iyo wixii umada wax laga gadayay isma laha. waxaan aad iyo aad uga cabanaynaa waxa weeyaan ganacsatada wax keensanaysa iyo doorleyda wixii wax sarifaya iyo wixii maamulka oo aan maarayn iyo wax qabad iyo arrimaha bulshada oo wax ka ogyahay aysan jirin ayaa hadii la kuna halkaas ay cabashada aan taaganahay. qof kasta waa qoys danyara wuxuu ka soo bilowdaa hoos, wuxuu gadaa qudaar, waxa qudaarta la gado waxa lagu gadaa kaashka waxa lagu gadaa lagu bedelaa waxa loo tagaysan $1 wuxuu ku leeyahay ma hayo. waxay taeen qofkii wax gadanaya qutul daruurigiisa caawa jawaankaas uu kala soo baxaa, jawaankii wixii kala soo baxay qofkii doonaya wuxuu doonayaa $, kii keenaya wuxuu doonayaa $. waa ogtihiin shacabka ee dawladdu way ogtahay, dadka wax gataana way ogyihiin, ganacsatadu way ogtahay. kaashku wadankeenu inteen maqdabadeenu ka shaqeeyaa, qof walba shilinka uu wataa wuxuu ka shaqeeyaa meesha uu degan yahay. maadaama uu meesha uu degan yahay ka shaqeeyo ma aha wax socodeen maaragtay meel fog ka aada. dawladdii hore sida gabdhuhu sheegeen markaanu mudahiraadno ama nala caburiyo dawladdu waxbay ka qaban jirtay. maamulkeena kan hadda dhismay fulin dacwooyin badan aanu qabno baanu geynay, wax naloo ka qabta weli ma jiraan haddaanu haweenka nahay. sidoo kalena ganacsatada khudaarleyda ah ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay sare u kaca sarrifka lacagta doolarka ay ka tahay lacagta cusub ee shilin Soomaaliga oo ay dhowaan Puntland daabacday, iyagoona maamulka Puntland ugu baaqay inay joojiso canshuuraha oo ay sheegeen inay ku qaado lacagta doolarka halkii hore lagu qaadi jiray shilin Soomaaliga. waxa la goosan waayay macaashadii waxa weeye doolarkii cirku isku shareeray. dawladuna waxay sameynaysaa lacag bay sameynaysaa, lacagta dawladdu ay sameynayso dawladdu iyada wadanka xukuumta iyada dawladka iyagu lacagta ma ogola ma rabaanin hadda wayna sameynayaan cashuurihii wax walba waxa lagu qaadaya doolar baa lagu qaadaya. marka dawladda waxaan ka codsanaynaa si cadaalad ah inay shacabka ugu dhaqdo oo lacagta ee doolarka ee cashuurta ku qaadayso ee ku bixiso ee Soomaali ku bixiso oo ku qaadato oo mushaarada Soomaali ku bixiso oo doolarku dadku u shaqeeyo anagu lacagta la sameeyay kala soo jeedno. laakiin waxa weeye lacagta qalaad wadanku wadan qalaad maaha, waa wadan Soomaaliya, lacagtu waa Soomaali, ninka madaxweynaha waa Soomaali, kan askariga waa Soomaali, kan shacabka waa Soomaali. in la isticmaalo Soomaaliga la isticmaalo oo dawladdu hogaamiso oo iyadu qaadato oo cashuurta ay qaadayso joojiso oo ku qaadato Soomaali oo mushaarada Soomaali ku bixiso oo Soomaali u shaqeeyo. sidaas wadanku ku degaya dhaqaalena ku yeelanaya. laakiin haddii la doonayo in ay dawladdu gurato lacagta qalaad gurato dadkan ay u samayso waraaq u samayso ma siira galayso, waayo door baa u qaadanaya ma suura galayso. waxa weeyaan halkan waxaanu isugu nimid dhibaato isugu aanu imanin inaanu wax qalqaladayna isugu aanu imanin. dhulka waxaanu u degnay wax yacni aanu ka firsan weynay inaanu dawladayada u cabanno. waxaanu u cabanaynaa dawladayada, waxaanu nahay shacabkii reer Puntland intaa isu timi ee yaryar iyo caruur iyo waaweyn iyo odayaal leh. waxa weeyaan wax dhibaato wada ma jirtay. waxaanu doonaynaa in waxna laga aqbalo oo nalaga qoro. waxa weeyaan xoolaha waxay ka yimaadaan Itoobiya iyo koonfurna waxa lagu isticmaalaa waa $, wax isu dhowna maaha. sidaad haddeer aragtaan
waxa la joojiyey mooskii waxa la joojiyey bambeelmadii waxa la joojiyey cambihii waxana loo joojiyey waa laga fursan waayey markii halkan doolarkii 2 milyan iyo 600 ka noqday jiray shilin Soomaaliga banaanbaxyadan ballaaran oo ay dhigayeen ganacsatada khudaarleyda ee magaalada Boosaaso ayaa ku soo aadaysa xilli deegaanada Puntland ay ka jirto cabasho xoogan oo ah maciishada oo qaaliyooday iyo kor u kaca sarifka doolarka waxaana dhowaan banaanbaxan kuwa la mid ay ka qabsoomeen magaalada Garowe caasimadda Puntland Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta SBC Boosaaso